su-aasha xasan waxay la xidhiidhay xoolahan laga qaadanayo meelaha wax laga baahiyo youtube-ka iyo facebooka iyo meelahaas haddii marka aad waxan baahisa ee iyagii ay suuq badan helaan lacag lagu siinayo waxa isweydiin leh waxa la sii daynaya adigu aad sii daynaysa xalaal ma yahay mise waa xaaraan hadduu xalaal yahay oo aad sii dayso ay kuu sii daayaan goobtaasi lacagna ay ku siiyaan dhib ma laha waxaynu ogsoonay iyaga laftigoodu shardi waxay ka dhiganayaan inay iclaanaad iyo ogeysiisyo meeshaada ka baahiyaan oo dadku uu daawado oo dee ciddii wax loo xayeysiinayay ay sidaa waxoodii lagu ogaaday suuq ku helaan marka inta badan iclaanaadka iyo ogeysiisyada saan filayo ayay wax ku bixiyaan kolba inta ay leegyihiin marka wuxuuna mudanuun waxa ay meeshaada ka baahinayaan in la iska xadido oo malaa shuruud bay dee soo dhigaan marka waa laga baahin karaa meeshayda waxaana lagama baahin karo marka waxa iclaanaadkii ogeysiisyada halkaa ka sii daynayaan hadday yihiin wax saxa oon mabaadida iyo akhlaaqiyaadka islaamka waxba u dhimaynin wax iska caadiya yihiin oo ganacsiga waxaa la xidhiidha wixii ay ku siiyaan dhib ma leh laakiin haddii ay dad qaawan iyo wax khariban meeshaada ka sii daayaan oo sidaana ay wax kugu siiyaan horeynu uga soo hadallo waa xaaraan marka waxaa la sii daynaya ku xidhanta waaya sawirka toddobaad wuxuu weydiinayaa lacagaha youtube-ka laga qaato youtube baa la furtaa dad badan baa sheergaray iyo scribe garay la yiraahdaa kadibna shirkada youtube-ku dadka lacag ay siisaa waxaana lagu siiyaa inta qofka saailkii soo qoray xayeysiis baa boggiisa lagu samaystaa markastoo dadka bogga ku xiranay bataan xayeysiisna isagu u ogolaaday in lagu sameeyo wixii lagu xayeysiiyey bogga isagu uu lahaa dadkaa badanna isagu uu keeno kusoo xiray ba commission iyo percentage laga siinaya warka nuxurkiisu dadkaa uu keena lagu xayeysiiyey baa wax yar oo khidmada lagu siinaya hadday mas'aladu tahay marka xayeysiintaasa lagu siinayaa waxay ku xiran tahay waxa la xayeysiinaya ma xalaal baa mise waa xaraam hadduu wuxuu xalaal wada yahay wixii laga helaa waa xalaal kamana duwana tvgii wax xayeysiinayey iyo idaacaddii wax xayeysiinayeysay iyo website-kii wax xayeysiinayay waxba kama duwana ama ninkii lugtaba ku wareegayey ee badeecadda suuqa dadka soo tusayey ee wareejinayey ee wax lagu siinayay kama duwana waayo dadkani isaga magaciisay soo raaceen isagaana ugu yeeray oo keenoo meeshan ku xareeyey wax nin loo sii daayeen isaga idankiisa ay ahayd inuu wax ku qaatana wax curfi oo lagu heshiiye waay hadduu waxa la xayeysiinaya xaaraam wada yahayna waxa laga helo dhan xaaraam way hadday isku jiraanna wixii xalaala wixii laga helana waa xalaal wixii xaaraana wixii laga helana waa xaraam wuxuu lamid yahay dukaanka badeecadda xalaasha iyo xaraamta lagu gadayo badeecad buu gadaa raashin buu gadaa cunno gadaa cabitaan buu gadaa sigaarna waa gadaa qadarka waxa uu gadaa xaraama laakiin raashin iyo cabitaan la gaday xaraan ku noqon maayaan wuu ku dambaabayaa qadarka xaraanta uu gaday qadarkeeda waana masalada culimmadu ay kaga hadlaan qofka xoolihiisu xaraan iyo xalaal isugu jiraan in qadarkii xaraamtaana xaaraan ka yahay qadarkii xalaasha ahaana uu xalaal u yahay qadarka xaaraanta wixii ku aadan ugu dambaabayo intaa weeye nuxurkeedu ee adu maxaad xayeysiisaa waxa boggaada lagu xayeysiisa xalaalnimadiisa ma iska hubtaa mas-uuliyaddu qofkii bogga lahaabay u noqonaysaa youtube ayaan isticmaalaa riwaayado iyo wax lamid ah ayaan soo geliyaa marka sheekhow lacagta aan ka helay youtube-kaas maxay diinta ka qabtaa youtube-ka lacagaha laga helo horta marka hore waxay u baahan yihiin inaad fahanto waxa lagugu siinayo adduunkan maanta joogaay ma jirto wax la yidhaahdo bilaash wax bilaash laysaga kaasiiyey ma jiro majarad youtube baa kuu furan dad baa kugu xidhan lacagtaasi waa sadaqa ma jirto wax la yidhaahdo waxbaa jira lagugu siinayo waxa lagugu siinayo waxa weeye youtube-kaaga markaad u furto in wax lagu xayeysiisto oo kambaniyadaas adduunka ay wax ku xayeysiistaan markaasaa
dad badanna ay kuugu jiraan dadka badan ee kuugu jira ayaa target ku yahay in xayeysiintu gaadho adigana waxoogaa yar lagu tuuro طيب sida markaad u fahanto waxa xayeysiinta ee ka baxaya telefishinada ka baxaya ama shirkaduhu ay xayeysiisanayaan haddaad isweydiiso tiraahdo waxaasi maxalaal ba jawaabtu waxay noqonaysaa in badan oo kamid ah xaraan khamra lagu xayeysiinayaa naaga qaqaawan baa isku xayeysiinaya waxa lagu xayeysiinayaa daroogo waxa lagu xayeysiinayaa wax Ilaahay xarimay waxa lagu xayeysiinayaa ribadii waxa lagu xayeysiinayaa wax kasto munkar ah adiga YouTube-kaagii buuna maraya waxaad wax ku heshayna intaas uu noqday marka waxay noqonaysaa sharka iyo xumaanta kuwii faafinayay baad ugu kaalmaysay kaalmayntaasina waa xaraam wala tacaawanu cala al-ithmi wal-udwan dambi socda iyo xadgudub kaalmaha ka geysanina waa la yiri hadii ficilka la xarimay wixii kugu soo galana waa xaraan marka inna allaha idha harrama shay'an harrama thamanahu nabi sallallahu alayhi wasallam shay ilaahi haduu xaraameeyo lacagtiisana waa xaraameeya saas daraadeed YouTube-ka iyo internet-ka wixii kaaga furan oo qaabkaasi wax kugu soo galaan kulli waa xaraan waay laana wasiiladii qaabkaad ku helaysaa waxay tahay ee lagu siinayo qaab shariicada khilaafsan wallahu a'lam